tantaaytaan ka baxo waa dagaalka Soomaaliya ku soo qaaday Somaliland marka dagaalka waxaan u aragnaa dagaal ay wadaan dawladda Muqdisho ka dhisan waxaad idaacadaha iyo dadka wariyaasha iyo saxaafadu ay inta badan aan ka maqlay oo isticmaalaya Puntland iyo Somaliland ma haya waa laba dirisa waa dad isku mid ah waxa la xaalada hore taariikhana uga dhaxaysa oo gaarina ma jirto waxay soo qabsan ma jirto waxa weeye siyaasad ka timid Muqdisho dawladdeeda ay soo goysay oo ay ku doonaysaa inay ku xaqiijiso ama hirgeliso inay tahay dawlad ka talisa Somaliland inaanay jirin waxa la yiraahdo qaran Somaliland uu yahay gobol ay xamar ka taliso oo farmaajo iyo ra'iisul ay caalamku u tusayaan inay tahay gobolada ay u tahay mid kamid ah marka Somaliland 20 sanadood adkaysatay qarannimadeeda iyo hay'adaheeda iyada oo aan wax oraada u gudbinin dawladda xamar ka dhisan dawladda nimka dhisan waxa la noqotay inay ciidan ku caaburiso Somaliland wana sibdar maanta in intaas oo dhan yari ay ku dhintaan dagaal ay wadaan siyaasiyiin ama kursi ay fadhiyaan ku cimar dherarkiisa ku doonaysa ama awood iyo kalsooni aanay ummad u haynin oo mar hore ka guurtay oo ka goosatay ay ku hamoonayaan inay xoog soo gacan galiyaan Somaliland nabad way ku asaasantay dhexdeeda nabad way ku dhamaysatay wax kasta oo khilaaf u yimaada mar walba khilaaf u yimaada la diidi ma khilaaf Somaliland khilaaf iyo weerada bini aadmi noloshiisa ka mid tahay qoyska inankiya aabaha iyo hooyada iyo inanta isdhaayba khilaaf ka yimaada dadka wada shaqeeyo ka yimaada shirkaduhu ka yimaada khilaafku waa nolosha bini aadmi ka mid qabaa'ilku ka yimaada deegaanadu ka yimaada wuu inala nool yahay bini aadmigana waxa ilaahay xul saaro khaliifada ardu uga dhigay inuu khilaafaad ka xaliyo iyo dhibaatada kale ka hor yimaado marka Somaliland dhibaatooyin badan baa ka hor yimid gudaheeda dibaddeeda dabeecadahan iyada xalisata waayo qofka Somaliland wuxuu aaminsan yahay inuu nabad wax ku noqon karo Somaliland ka yari ka wadi wuxuu ka daalay colaadaha wuxuu ogyahay colaadaha waxa uu leeyahay mujtamaca ugu badan Somaliland oo cimrigooda 40 jir yahay waxay ku garaadsadeen oo ay wada garanayaan dhibaatada colaadu leedahay marka qof waliba ka hortaga colaada marka dhibaatooyinkeeda gudaha nabad ku xalisto caalamkana waxay u fidinaysaa nabad dariska nabad u fidinaysaa caalamka dhan nabad u fidinaysaa si kala hadaan idinku sheego juhdiga Soomaaliland ku bixiso nabadda adduunka oo dhan dhaqaalaheeda oo adoogtiin kuwa ugu yar adduunka xagga hoose kaga jiro inta iskuul iyo biyo iyo caafimaad ka goyso waxay ku nabadgelyada caalamka oo dhan iyadoo ku ilaalisa xuduudaheeda oo dhan xuduudda badeedu waa 800 kilomitir dhaqaalaheedana waa ognahay haddana Somaliland waxay waxeedu u hurtay oo ardaygu iskuulkiisii maartay wixii uu keenay lahaa laabkiisa u raayay oo ka caafimaadka dawadiisa u raayay oo arday badan ama mid badan caafimaad ku leeyahay waxa weeye 800 kilomitir ay nabadgelyada ku ilaalisa xuduudahooda ay dalka jaarkayeen dhan nabadgelyo ku ilaalisa ka Ethiopia ugu dheer waxaana wadahay nagu gudbo ka Djibouti waa jira waxaana wadahay nagu gudbo ka Puntland ee Soomaaliya kamid ah gobolka dawladda state-ka federaalka Puntland oo kamid ah Soomaaliya xadkeeda dheer oo xad leedahay maanta ay noogu horeysa wax colaad ka dhaca maantana waxa la keenay waa colaad laga soo reebay Muqdisho saadarteed ciidankeenu wuxuu tagay tukaraq bishii 8 bishii January 8 dad badan baa yiraahda sababta waxa kiciyay ciidanka Soomaaliland muxuu tukaraq u tagay ciidanka Soomaaliland tukaraq wuxuu tagay 2013 wuxuu tagay 2015 waxa mar degay ciidan kale ciidanka Khaatwe ee maanta Soomaaliland la safan ee ka hortay Puntland ayaa degay wuxuu uga soo noqdaa meelaha uu degay ciidanku xilliyada abaaraha jiilaalada iyo guyada buuga markay review jiraan uu aag dorsada marka jiilaalku wuxuu degaa meel biiray ila magaalada ma joogo ma haysteen marka guugi iyo ay dhacayaan roobka iyo kanaacadu wuxuu ka baxaa ciidamada waxa loo raraa meel ka baxsan wabiyada
iyo meelaha kale calaho taag baa loo rabaa ciidanku dalkiisa halkii uu kolba ku habboon markaa ayaa loo rabaa markaa wuxuu u tegey iyadoo kaliishi ku leedahay iyo jiilaal dheer la filayay meel biyo doonay dambi maal uu galay ciidankaygu hadduu dalkiisa meel ka mid ah degay waanu degaya waxuu gudanayaa waajib dastuuriya dawladdu ciidanka dalka dhexdiisa kolba halkii u daray u raraysa waxaanu gudanaynaa waajib dastuuriya in dalka xuduudda la sugo inuu Soomaaliland wadayaa inuu Soomaaliland daafa 75 kilomitir bay kasoo duulaan ciidankaas halkaas ku soo weeraraa ciidanka markii laga wada hadlay ee dhowr jeer ay ciidamada ka soo baxay Garowe oo waxay diiday inay takraq timaado inaad soolba soo gashaan halkay takraq waan joogsanay waxaan ku niri Soomaaliland waa joognaa xadkayga 5 baa ka haray garbixiyaana maxaa qoosatay muqdisho madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare maxaad qoonsatay jawaabta soo baxday waxay ahayd waxa ku jirtaan loo idaan lahayn oo xadadkii isticmaalkii miyaa la bedelay haddii xadadka isticmaalka la bedelo afar kibad dee waa isku dhex yaacaysa caalamku kiiba ku dhisay stateska xamara iminka aynu maqalno koonfur ee la yidhaahdo Jubbaland iyo koonfurta Baydhabo iyo Hiiraan iyo Jubba Jawhar iyo Hiiraan iyo Galmudug iyo Puntland waxay ku salaysan yihiin xuduudiisa 60kii markii uu ka tagay Talyaanigu ay u kala qaybsanaayeen waa goboladii Majeerteeniya Hiiraan Alta Jubba Lower Jubba ayuun baa loo rogay stadium taasaa khalkhalaysa haddii laga tago dee marka annagu maanaan samayn xuduudada ay sameeyeen tala Ingiriiska iyo Talyaaniga u dhexeeya maanaan samayn waa wax caalami ah cunfi kuma tagayna xataa iyadoo qabin waxaan tegaynaa tiyo Soomaaliya u dhan tahay oo reesoor kow ka yihiin oo sanaag bari ka kow tahay oo inay Soomaaliya wax dhisata ay dan mooday oo isugu timid siyaasiyiintii ugu waaweynaa ee reesoor ee jabhada sameeyey ee ciidamada abuur Soomaaliya ka soo horjeeda waa inaga nabad ku heshiinay isii baa ugarashay xeelad toosiya ka gudoomiyaha khaatuma ku ahayd laba ahayd oo tukaraqdaa intay degtay aynu ciidan ahaan iskaga horin 2015 waa kan ala khaliif maanta markaynu heshiinay Soomaaliland oo dhan iyo deegaanada Sool iyo Sanaag bari ayaa waxaan rabsay inuu xadkeena gari ku gaarno waxaanu gaarnay xadkeena si dadku nabadgelyo si mashaariic loo doono caalamka dhul nabada ay ma wax laga qaban karaa si dadku u dego si biyo loogu qodo si iskuul loogu sameeyo si caafimaad loo sameeyo waa in nabadda xadkeena soo xidho meenu waxyaalaha dhacay wax ka mid ah week koor maalintii bisha 19 16 meelaha weerar laga soo diray afar gaari oo technical oo ka yimid Garowe ayaa waxay raas ka rideen hadaftimo oo ah xarunta saldanada Suudaan Saciid oo aan wixii Soomaaliya ay buuqiyo jirtay aanay xabad ka dhicin wala Soomaaliya ba taageeraysa markaa ninkii odaya siyaasi ah kii madax dhaqameeda kii waxgarada ilaa Soomaaliya baan ama loo hanjabaya ama waxa loo leeyahay dadka wax ka daalu keenaya ma lagu dilay xamba maaha hoos baa la isugu sheegay idaacada rasuul soo fariistay oo habeen hore ka dhigsanaysa Garowe hebelo inka xagga amra waadil waxa diidaa oo ka dal koriba dawaadil hadda wada ka deegaan saa wax lagu qabto waxaan u sheegnaa taliska Muqdisho halka ma joogtaan idinkii baa shaayid ilaaliya marka ninka soo jooga iyo ninka jooga cergaabo uga hanjay meesid haddaad soo raaci weydo waan ku xurayaa iyo waan ku xukumayaa xabsiga Ingiriis anagu waxaan leeyahay kanaga soo jeeda wada hadal iyo walaalo maxay kula tahay ayaan ku dhamaanay waan ku heshiin ka naga gardaran ee labada goor iyo saddex goor soo weeraray ee 15 kilomitir soo duulay ayaanu leeyahay walaalo ragga hadii leen walaalo colaad jooji maxaa tabanaysa مير قوان كوا هذا
waxaan kusoo koobaya war caalamkana u sheegaya somaliland u sheegaya haddaanu somaliland ahay marka hore duulimaad maan nihin kuma duulayno cidna garoowo weliga iyo colaad ku tegi mayno nabad iyo barwaaqa mooyaane yaa taleeda ma lihin soomaaliya ka tirsan tahay waa federaalka stateska soomaaliya ixtiraam baanu haynaa horumarkeedaanu jecelnahay dadkooda walaalnimo iyo waxa naga dhexeeyo wanaag kuma soo duulin garoowo waa lagu soo socon kuma soo socono garoowo ma tegayno qofna wax yeeli mayno soomaaliya oo ama reer muduga ama reer baydhabo ama reer midna colaad uma hayno waxaa la isku hayaa ee soomaalida hore u tagtay waa siyaasi tiisii gabay oo dadkiisii dhibay oo annagana doonay inuu soo gaaro kaana ma aqbaleen noogu maayo somaliland laba maanta xaaladda joogta ciidanka iyagu halku 8 January degay ayuu taagay ma dhaafayo cid walba u sheegayna inta noo dhiman wada hadal baan ku gelinaa war maxaa diidantii ma leh ku qasbi mayno qofka naga soo horjeeda inaan ku qasabno xabad inuu raayga qaato ciidanka warhaas joogay weerar geli maayo xabadna u rid maayo xagga haddiina la soo weeraro waa isdaafacayna waa ku celinayna nin siyaasi hore Soomaaliya wuxuu yiri dagaal dheer baa la gelaya ku dheer iyo ku dhowtoona diyaar uma nihin laakiin dad ka maarbu anigu difaac man kugu jiri inta dheeranaysa dadka la insaada aad yaqaan annagu ku gaabanay ku dheertoon ma doonina dagaal waa ka soo daalay mana qaba in Soomaali qof Soomaali maanta dagaal xiiso qabo oo miir qaba waan ku dheeraaday arinta go'aankayga wuxuu ka yahay ciidankayga warkaas joogaya nabad buu ku doonayaa cid weerari maayo xabadna ridi mayno Soomaaliya Soomaaliland waxa ka dhaxeeyo wada hadal baa lagu dhamaan karaa kaana diyaar baan u nahay wixii gardarana gaadhay kii kale ka horreeyay saas ah lamid buu ma farmaajo ku jiray teleconference leeyahay nabad halkayga soo dhaaf maayo xabadda soo ridi mayno laakiin shalay berito waxay noo tahay 15 shalayna laba goob bay ka soo weeraray waxaan mu soo weeraray wuxuu dagay baruhu aroorta ka soo weerar qaadanay madaxweyne biska soo reysay yaa garantii sirey berito baad aan ku jiraan weerar gal ma galaya leeyahay waa gudan wixii ka dhacay marka binaadku qowl bisla qowl ka ekaada nin meel u jeeda hadal ma xirayo waxaan arkayaa in aan dadka Puntland dagaalka daruugu jiray dagaalku mid siyaasad ah Soomaaliland waa gobol kamid ah caasi garoobada xoog baan ku muquurinaya ah xamar ka soo baxay oo la soo maray Cabdulrahman Deewarka marka ninka wada hawsh yan ka hadlay dhaawacii meel diyaar soo dirno xamar loo geeyay meelada Turkiga uu qaaday ciidankiisi dhaawac ah meel isoo ku saar xamar ku tagay boqoshooyinka ahayn maxaa biskiina Cabdulrahman la isticmaalay aan karaade haddii nabad la doonayo nabadda nin baa dabada ka wada halkaas ka socota nimanka waan ka xumaa aan dhalinyarada Puntland reebel baa la yaari ka ablaya oo la soo raxmaro aad baan uga xumaa dambina ma laha waxa loo soo raxmaray madaxweynahooda oo malaha isaguna siyaasiyan uga jeedaan oo kursiga dhaastay waqti ajoon marka waan la hadlay adeer haddii wax ka waan cid wax ka waan baan la hadlay cid qowlo ilaahay ka yaabso erga ku dhahday hirgelaya waa la qaata laakiin qof aan wacdahay maxaa kala galay ilaa maalintii jeeno eerkeedii qof walba waxaan balan qaaday inuu ciidanka halka dhaafay xabad ridin hatta mararka qaar kood waxaan u diyaar sahamka inay hore xagga hore iska eegaan taliyash maalin walba waxay gaaraan 40 kilomitir hore maalintii hore waxay dhaafeen bilqaboobe oo xarintooda ahay waxaan ugu gaadhin la soo celiyo ciidamada bal ciidan guul gaaray oo cadawgu si jabiyo oo jeeri karaayo oo leeyahay ka soo noqon ka war nabad baan ku doonaynaa dadka deegaanku nabad galaan baan doonaynaa inaan deegaankayga la sajeerin oo dadka dhulka degan aan ciidamada hadeen baan doonaynaa ku socno laakiin hal cidii qowlkaas ka go'ay